بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janalkeena gacmo furan iyo qalbi saafi ah. waa idin soo dhaweynaya Soomaali weyn, waana idin salaamaya meel walba joogtaan. maalin wanaagsan. موضوع رأو إن مانتي أن كهاد لا يبحث هاي كرة حيسة نلشاد أسباب كينس إن نلشاد كرة حيستيت أسباب بدر أي كين هاي أود نخطي تقف كم خان إن ولول مشاكل ولول مشاكل كم خان هدي بروبلم وكهستن وكو يصير معه إن سرت وحاول إنها تقولانشو وضعك أم بحالك أديك أتكسوغنت هاي إنها تقولاتي دوا أسباب كينس inaad faraxsanaatid mar walba oo gudahaaga ay ka jirto nabad adiga aad heshiis nafsadaada aad la tahay waa faraxsanaanaysaa markaad ogolaatid inaad bini aadan tahay hadii aad qaldantid oo qaldamaysid oo aadan buunbuuninin qaladkaaga. dad waxaa jira markay qaladamaan oo aniga saan u sameeyay habeena badan maalmo badan ay ku qaadanayso in ay maskaxdooda ka saaraan ay ogolaadaan ogolaaw inaad qaldamaysid oo adiga aad bini aadan tahay. taas waxay ku horseedaysaa inaad adiga nolosha aad ku faraxsanaatid oodna ku raaxaysatid ayay ku keenaysaa. waa gudahaagii ayaa kasoo baxay waxaad heshiisaad leedahay nafsadaada. ogolaaw guuldaradaada ogolaaw. dadka qaar waxaa haddii ay guuldareystaan dadka qaar waxay ku qaadanaysaa muddo dheer inay kasoo kabsadaan ee guuldaradii ma ogolaan karaan. aniga waxaanan sameeyay aniga seesaan ugu fashilmaysay bini aadan tahay haddii aadan guuldarada aadan dhadhaminin qaraarkeeda ee guusha macaankeeda ma dhadhaminaysid. marka inaad ogolaatid waay guuldaradana ogolow waa inaad aqbashid waay guuldarada hadday imaato waa dariiqii amba jidkii adiga aad ku gaari lahayd guusha. haddaadan guuldareysanin macnaheeda waxaa waaye oodan ku celinin. haddii aad guuldareysatid waa inaad ku celisaa mar kale waa mar kale waxaad ka baranaysaa ilaa aad ka gaartid guushii inaad wixii aad wadid oodna ogolaatid inaad tahay caadi qof caadi tahay oo bini aadan waa guuleysan kartaa waa guuldareysan kartaa waxyaabaha nolosha oo dabiiciga ah waa oo normaliga ah. marka ogolaaw haddaad rabtid inaad noloshaada aad ku raaxaysatid oo si qurux badan oo happy aad rabtid inaad ahaatid ogolaaw guuldaradan ogolaaw wax walba ogolaaw oo qaladaadkaaga aqtaagaaga meelahaad ka xun tahay ogolaaw qaladkaaga ogolaaw xumaantaada ogolaaw meelaha aad ka liidatid yani ogolaaw laakiin sax meel waxaa jira aad ku liidatid meelaha aad ka xun tahay jirto hadiidin laakiin isku day inaad saxdid ogolaaw inaad adiga aad tahay bini aadan aad ka duwan tahay qofka kaleenta oo bini aadanka mar walbana ha isla barbar dhigin dadka kaleenta. waxyaabaha dadka aad u niyad jabi waxaa ka mid ah isbarbar dhigitaanka noloshaada. weliga ha isbarbar dhigin qofku doon ha ahaado heerku doon nolosha ha ka gaaro qofkaas adiga ma ahan asagan adiga ma aha isma tihiin. qof walba waxaa waay gooni waay hadafkiisa gooni waay yani ilaahay ugu talagalay qof walba waxbuu ilaahay si adigana waa gaari kartaa laakiin ha isla barbar dhigin weliga saa adiga nolosha aad u aragtid laga yaabo inuusan u arkin aragtidiina kala duwan shakhsiyadiina kala duwan. marka ogolaaw inaadan isbarbar dhigin dadka waxyaabaha farxadda dadka qaada waxaa ka mid ah nolosha inaad ku raaxaysatid ku diidaay isbarbar dhigitaanka ha isbarbar dhigin dadka. ogolaaw guuldaradaada ogolaaw dabeecadahaaga xun xataa yani haliidi nafsadaada maanta oo dhan ha garaacin ha dhihin maya saanaa tahay ha hiifin ha dhihin ogolaaw dabeecadahaaga xun. wax walba aniga nafsadeedii waan ku ogolahay waana ku aqbalay saa tahay waa inaad ogolaatid waay nafsadaada. laakiin wixii ay ku xun tahay isku day inaad saxdid. waxyaaba nolosha raaxada keenaya waxaa waay oo lagu raaxaysto muhiimada oo dhan waxaa waay ogolaansho inaad adiga aad is ogolaatid waxaa tahay dhaqankaaga wax walba ogolaaw maalin maalmaha ka mid ah haddii aad qalad soo gashay in aad qaladkaas bini aadan aad geli kartid ood iloobi kartid aad ka gudbi kartid hasii hiifi nafsadaada maalin hebeley saanaa samaysay maku cafinayo maanta oo dhan ha dhihin. ogolaaw in dadkana qalad lagaa geli karo. ogolaaw dadka inay kala duwan yihiin oo qofkan adiga aragtida aad leedahay uusan lahayn. ogolaaw qof walba siduu asaga yahay inuu ahaanayo adiga aadan bedeli karin. ha isku dayin dadka inaad bedeshid. noloshaada waxay ku noqonaysaa mid sahlan oo easy farxadaad ku noolaanaysaa waana ku raaxaysanaysaa. yani aniga shaqadeeda ma inaan dadka aan bedelo ma ahan qofka duro asaga isbedelo laakiin waa inaan aniga aan ogolaada qofka suu asaga yahay waa inaan aniga aan ogolaada aan isku dayin inaan bedelo
ogolow waxyaabaha nolosha inaad ku raaxaysatid ku sahlayo waxaa kamid inaad ogolaatid nafsadaada si ayada tahay quruxdeeda xumaanteeda wax xun ma jiro haddaad adiga aad xumaan aad u aragtid waayo ma xumid sida ilaahay kuu khalqay inaad ogolaatid waaye muhiimada ma aha inaad xun tahay qof xunna ma jiro ilaahay wax xun ma khalqo xaasha lillaah wax walba ilaahay oo khalqayna waa qurux badan yihiin marka ogolow muuqaalkaaga inuu yahay mid qurux badan aamin gudahaaga ka aamin qurux badnaanaysaa noloshaadan waxaa waaye ku raaxaysanaysaa muhiimada waxaa waaye wax walba oo noloshaada inaad ogolaatid oo nolosha ogolow duruufaha nolosha haddii ay kusoo wajahaan in ay tahay maanta oo beri aysan heerkan aadan ahaanin ood ka bixaysid ogolow duruufta saciid oo ay u maatay inay haddana ay bixi karto oo duruuftaasayta oo duruufka qurxan ay imaan karto marka hadiidin duruufaha ha hiifin ogolow caadi waay dheh maalina waxaa waaye kor waaye maalina hoosaa layahay yani ogolow wax walba oo noloshaada markaas waxay ku noqonayaan sahal easy aad u noolaanaysaa markaad wax walba aad ogolaatid nafsadaada sida ayada ay tahay aad ogolaatid duruufaha kusoo wajahaya inay yihiin wax normal oo dadka oo dhan ay soo marayaan adigana aadan ku raageen oo caadi ay tahay ogolow haddii shaqo xun aad heshid aad kasoo baxdid shaqo la-aantaasayt caadi u arag ogolow yani inaad beri aad helaysid aamin wax walba inaad ogolaansho waay ogolow sidaad adiga tahay is ogolow adiga markaad is ogolaatid dadka waa ku ogolaanayaan dunidii dhan ku ogolaanaysa marka is ogolow wax walba waxaa waaye qaado si ay yihiin qaado hadiidin wax walba qaado si ay yihiin qaado hadiidin marka waxaan jeclaystay video yar oo gaaban oo dhiirigelin inaan inii soo duubo noloshaada ku raaxeyso mar walbana haddaad habi aad ahaatid ood faraxsanaatid waxyaabo badan ayaad ka badbaadaysaa oo dhibaatooyin caafimaad ahaan ayaad ka badbaadaysaa marka maskaxiyan waa degan tahay qof qurux badan aad noqonaysaa markuu qofku mar walba uu yahay qof faraxsan waa ku raaxeysanaya xataa rootiga aad cunaysid ku raaxeyso maxaa dhacay ku faraxsanoo markaad rootiga aad cunaysid hayeefin nafsadaada dhihin maanta rooti qaleelaa cunaya ha dhihin alxamdulilah dhe dad ayaan haysan rootigaaneti inaan rootigaan cunayo ku raaxeyso nolosha dhan marka waxay ku noqonaysaa macaani ku noqonaysaa waanad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay aad ayaan kaaga mahadcelinayaa in badan videogan video xiga intaan kulmi doon waxaa idinkaga tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciao